maxallaygu xidhaya xag jir layga dhigaya ee lay xanibaya. waa markii saddexaad ee xabsiga uu wajahayo wariyahan ka shaqeeya samafalka cabdimaalig muuse coldoon. waxaanu soo booqannay walaalkayo khadar macalin deeq. shalay casarliiqi ayaa ciidamada booliska magaalada burco waxa ay ka soo xidheen xafiiskiisa oo ku yaala gudaha magaalada. mar dambana waxaa loo soo dhaadhiciyey dhanka magaalada caasimadda ah ee Hargeysa sida laga soo xigtay xubno ka mid ah qoyskiisa. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya Coldoon oo ciidamadu ay ka sii wadaan xafiiskiisa. wararka qaar ayaa sheegaya inuu qabay dhaawac dhanka lugta ka soo gaadhay. saaxiibtinimada Coldoon iyo xabsigu waxa ay soo bilaamatay horaantii sanadkii 2017 markaas oo ciidamada booliska Somaliland ay xabsiga u taxaabeen xilli uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. isla sanadkaasi bishii Abriil waxa uu wajahay dacwad ku aadan inuu ku xadgudbay qaanuunka iyo xeerarka Somaliland waxaana ugu dambeyn lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah. mar kale Coldoon waxa magaalada Burco laga soo xidhay 17kii bishii Abriil ee sanadkii 2019 xilligaasi oo uu ka soo laabtay dawladda deegaanka Soomaalida waxaana uu markaasi wajahay eedeymo la xidhiidha inuu sumcad dilay dugsiga Abaarso oo ku yaala magaalada Hargeysa iyo inuu aflagaadiyay madaxweynaha Somaliland. isla sanadkaasi maxkamadda Hargeysa ayaa ku xukuntay 3 sano iyo bar xadhiga. Coldoon ayaa mihnadiisa saxaafadeed waxa uu ugu adeegaa bulshada tabaalaysan waxaana uu leeyahay barnaamij lagu magacaabo kaalme kuwan. dabcihaan waa nin ku adag arrimaha diinta waxaana inta badan uu dhalilaa arrimaha ula muuqda inay waxyeello ku yihiin diinta iyo dhaqanka suuban. فدكوهم ودكوا لي معاقلهم بأسلحة بدائية سماوية تثير الرعب في جند يخاف الموت والقسامة والقدس. dadka dhaliila waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin xeel fogaaday oo xag jira. hadalkiisii ugu dambeeyay ka hor xarigiisa waxa uu ku dhalilay jaamacadda Barwaaqo oo dhawaan ay ka qalin jabiyeen 16 gabdhood oo bartay xirfadda macalinimada. waa markii saddexaad ee Coldoon uu wajahayo xabsi iyo xarig uu kala kulmay Somaliland. ilaa haatan laamaha ammaanka iyo garsoorku kama ay hadlin xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon. Axmed Shimaali, Home Cable TV.